halkani waa magaalada Berbera waxaa saaka si weyn looga xusay munaasabada Ciidul Carafa dadyow aad u tiro badan ayaa iskugu soo baxay goob fagaara ah oo lagu talagalay inay mas'uuliyiintu kala hadlaan bulshada maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera ayaa iyagu halkaasi waxay kala hadleen bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanay fariimo adag u direen dalxiisayaasha imanaya maalmaha ciidka magaalada Berbera baasha ilaalin lahayd qaybta caafimaadka waxaanu diyaarnay culamadii iyo baraarujiyaashii cid kasta oo diyaar u ah waxaa ka miisaan culus 10 kun ama 20 kun ee dhalinyaro imanaya fariintooda markasta waxa weeyaan isbadbaadiya handadaalo bad wax ciyaar maaha maalin walba curada inaga dhinta iyo dadaalkaas oo dhan loo galay waxaan ku celcelinaynaa waalidiinta ubadkooda soo diraya iyo kuwa reer Berbera iyo dhalinyarada baalanaysa intaba inay aad isu ilaalinayaan إلهي سبحانه وتعالى عماشها أي نسمينا صلاة يصونكي إلهي سبحانه وتعالى هنجا أقبله قبائلها عملها إما كانوا يشوفنوا ولله الحمد ما أنت قبائل بدن ما دعيان سفي عن وفرح الله ينعيدني وحن ربنا إن والد كمر لبعض فرين ودرنا والد كوحن لنا يوبد كين وأوبد نجو خالي ينجد يعمل ردكي ما قرنا يسا والد كل صعود أوبدكي ما قرنا يسا والد كل صعوده dalxiis ku imanaya magaaladooda iyo badooda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa facility loogu talagalay ciidamadii iyo ciidankii dabaasha iyo qoladii caafimaadka waan u diyaarinay munaasabada ciidul adxada awgeed maalinta weyne ciida awgeed waxaan ugu horeyn hambalyeeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi waxaan ku xigsiinayaa dhammaan dadweynaha gobolka Saaxil jooga waxaan ku xigsiinayaa oo kale dhammaan ummadda muslimiinta ah dhammaan ama dunida caalamiga ha joogaan ama ha joogaanba Soomaaliland ha joogaane waxaan leeyahay ciid wanaagsan aynu ku wada ciidno marka hore ilaahay baynu u mahadnaqaynaa maanta waa ciida inagu soo simay caafimaad qab iyo camal saalaxa waxaan rajaynaynaa bisheeda ama ciideeda inuu sidaas leeg inagu gaarsiiyo caafimaad iyo camal saalaxa waxaan fariin u dirayaa dhammaan wadayaasha baabuurta oo aan leeyahay si degan oo wanaagsan u socda si ay u suurto gasho in dadka aad sidaan ay u badbaadaan muslimiintu meel kasta ay joogaan gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil dadweynaheeda waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum a'maal saalih ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga aqbalo acmaashii khayrka badneed aynu soo sameynay yoomal carafa soo soonnay waxaan halkan ka hambalyeeynaa shacabweynaha gobolka Saaxil meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxa kale oo hambalyo qaali halkan uga diraya maxayada muslimiinta daafaca caalamka oo dhan ku nool waxaan leeyahay ciid mubaarak waxa kale oo halkan si gaar ah uga hambalyeeynaa maxayada xaasaskayga iyo carruurtayda waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan gaar ahaan u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaasha labada gole xildhibaanada wasiirada dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa dhammaan shacabka gobolka Saaxil iyo dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland xamse jaamacire telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera